بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قيمها يغايها له كسو دواذا شبكة solarportal.com iyo solar live broadcasting waxaan idin hayaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan oo aanu kaga hadli doono arrimo dhacay arrimahaasoo intiina badan maaragtay ay ka warqabaan oo ay arkeen oo xalay aan soo geliyey bartayda iyo Facebook aan soo geliyey arrinta waxay ka hadlaysaa gabar walaasheena oo aad ugu xanuunsan magaalada London Amina Dhol oo title-kan uga dhigay iyo lacaga la yiri waa la isku qabsaday ama wax baa la isdaabamariyay mise arrimo ayaa dhacay la yiri ayaanu ka hadlaynaa marka si qaybiya title-ka yaa laga bedelan haddii Facebook iyo YouTube meelka la gelinayo marka arrimahaasaan ka hadlaynaa xalay waxaan soo geliyey clip fanaanada weyn ee Farxiyo Kabayare iyadoo maaragtay ku eedeysay qaar ka mid ah dadka reer UK iyo London iyo fanaaniin qaarkood iyo dad kale in gabadhan xanuunsan lacagaheedii la isdabamariyay ama arrimo ay dhaceen marka waxay kaloo ka hadashay Abuukar Mahdi ayay ka hadashay waxay ka hadashay magacyada ay sheegtay waxa ka mid ah Faynuus Sheekh Daahir waxay ka hadashay Ibrahim Baafo oo isagana ku sugan wadanka Australia ay ka hadashay marka arrimahaasaan rabnaa xalay iyada waa soo gelinay dhankii kalena inaan maaragtay hadda aan dhageysana ayaan rabnaa si wax walba ay u ahaadaan maaragtay mid maaragtay qof walba uu dhihi karo waa balance waa maaragtay qof walba gartiis ayaa la siinayaa marka caawa maaragtay waxaa marti inoogu ah isagoo ku sugan magaalada Minnesota ee wadanka Mareykanka Deeq Darajo oo ka mid ah asxaabta Universal TV ka shaqeysa TV-ga ka shaqeysa oo ku sugan wadanka Mareykanka isla markaana gacan weyn ka qaatay gabadhan walaasheena ah ee maaragtay aadka ugu xanuunsan ilaahay caafiye magaalada London si maaragtay loogu aruuriyo lacag loogu aruuriyo marka caawa waxa kale oo jira isagoo ku sugan wadanka Australia in maaragtay Ibrahim Baafo asna lacag ka aruuriyay meesha oo sida ay sheegtay Kabayare maaragtay 8,000 oo dollarka wadanka maaragtay wadanka Australia marka ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Deeq Darajo oo ka mid ah saan hore ugu sheegay asxaabta Universal TV wariyaasha aadka loogu yaqaano isla markaana ka qayb gala tabarucaada faraha badan ee loo sameeyo Soomaali abaar hadday ahaan lahayn wax walba oo haddana gacan weyn ka geystay arrintan Aamino Deeq aad ayaad u mahadsantahay saaxiib ku soo dhawow solarportal.com aad baan kuu salaamayaa injineerkayga saaxiibkay Cabdinaas Sola aadana kaaga mahad celinayaa adigoo si madax bannaan arrintan uga hadlaya oo aad doonayso in bulshada Soomaaliyeed aad u gudbiso xog ku saabsan arrinta Amina Dhol oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u gurmaday anigu sidaad sheegtay dalka Mareykanka North America ayaa mas'uul ka ahaa waxaana diyaar u ahay in bulshada Soomaaliyeed aan u soo bandhigo wixii aan ka soo aruur North America qaabka ay u bilaabatay sidaan u soo aruurinay meesha aan soo marsiinay cidda aan gaarsiinay dadka igala qayb qaatay markastana waa soo sheegaynaa waana soo gelinaynay adiguna waa kuu sheegaynaa qof walba oo Soomaali ah oo doonaya information ku saabsan arrinta Amina Dhol ee dalka Mareykanka oo aniga mas'uulan ka ahaa waxaan diyaar u ahay in mar walba okay deeq waa mahadsantahay horta runtii waxyaabo badan ay ka qayb qaadatay haddii aan lahayd shakhsiyan haddii ay ahaan lahayd dhanka iyo TV-ga Universal laakiin arrinaa dhacday xalay aniga waxaan soo geliyey bartayda Facebook saa la socotid fanaanada weyn ee reer Mareykan oo si fiican u taqaan asla shaqeyseen Kabayare Farxiyo oo runtii ka qayb qaadata mar walba sidii ummadda maaragtay loo gacan qaban lahaa laakiin arrintii aan soo geliyey runtii waxay noqotay arrin cirka ku dhigtay oo isku shareertay oo dad badan oo ay ka mid yihiin Abuukar Mahdi iyo dad ay ka mid yihiin Ibrahim Baafa iyo haddii si loo eego maama Faynuus xogaa oo dadban dusha laga saaray oo la yiri wax baa reer UK isdaba dhaafiyeen horta UK adiga mas'uulka ma tihid Mareykan ahaan adiga iyo asxaabta kale oo Kabayare ay ku jirto
imise lacag ayaad aruuriseen lacagtaas aruuriseen iminka halkay ku dambaysaa ma idinka idin ag taallaa mise gabadhii xanuunsaneed ayaa loo geeyey horta waa su'aal aad u fiican ugu horreyn waxaan jeclahay horta inaan ku bilaabo inaan u mahadceliyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Mareykanka oo lacagtaasi inay gacanteena ku soo dhacdo nagu aaminay nagu garab siiyey jeebkooda ka soo bixiyey iyagoo u baahan iska dhaafay oo gabadhaas walaashana ku caawiyey annaguna magaceena iyo sumcadeena kor u qaaday oo lacagtaasi aan ka soo aruurinay dadka marka laba u kala qaybina dadka dad oo lacaga baxshay oo qaarkoodna codsaday in lacagtooda ay bixiyaan aan la sheegin iyo dad qaarkood oo lacagta bixiyay laakiin aan halkan ka soo wada sheegi karin laakiin waxaan xusayaa oo aan sheegayaa dadka lacagaha nala soo aruuriyey oo habeen iyo maalin nala socday oo nala fadhiyey oo nala ordayey oo guryahoodii ka soo tagay oo carruurtoodii ka soo tagay oo iyagu wejigooda gaday suuqyada istaagay lacagaha bixiyey marka lacagta guud ahaan dalka Mareykanka aan ka soo aruurnay waxay gaaraysaa $30,000 waxaan aaminsanahay $30,000 haddii aan iska saxo intaanan ku dhawaaqin in ay raacsiisan tahay jajab aad u yar oo 450 inay gaarayso aan filayo lacagtaasi marka qaar waxaa jiro oo GoFund hadda ku jirto oo adiga aad garanayso GoFundka qaabka u shaqeeyo lacagta inay soo imisa ku jirta deeqow GoFund imisa ku jirta 8,400 ayaa ku jirta GoFundka 8,400 ayaa ku jirto GoFundka oo weli aan soo cadaano aan jecelahay inay soo cadaato sida ugu dhaqsiyaha badan inta soo hartay waxaan u soo dirnay Amina Doolna way naga gudoontay waa 22,450 ayaa u soo dirteen oo cash ah 8,000 haddii laga reebo oo ku jirta GoFundMe waa saas haddii aan ku soo celiyo 3,500 ana magacaygaan ku soo diray 4,500 farxiye kabyar magaceeda lagu soo qoray 4,500 nin la yiraahdo oo saaxiibkeen ah oo isaga nala shaqeynaya Cabdirashiid la yiraahdo oo nin saciim ah oo isaguna shidaalkiisa iyo waqtigiisa galiyay oo nin Soomaalinimada ay ku dambayso noo muujiyay garab istaagay oo xitaa uusan codsan xataa in magaciisa aan la sheego laakiin aan ku qasbanahay maadaama arrintaada ay suuqa imaaday Soomaalida dhan ay doonayso in waxaan wax ka ogaadaan Cabdirashiid 4,500 magaciisa ku soo qornay $4,623 liibaan xuseen liibaan show liibaan may qofka sida u yaqaano waa wariye ka shaqeeya telefishinka qaranka Soomaaliya oo mas'uul ah oo halkan fadhiya anigana saaxiibkay ah ayaa magaciisa ku soo qornay $4,450 waxa u soo dhiibnay maadaama ay farxi kabeere ay soo aadayso dalka Ingiriiska magaalada London iyada u soo dhiibnay lacagtan way wareejisay indhaheena ku aragnay Cabdinaasir haddii aan mar kale aan ku sheego lacagta Mareykanka imaaday muran kama taagno sidaan u malaynayo sababta farxi way cadaysay طبعا Soomaaliyeed oo cadaynay laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ku daro lacagaha inta badan dad anaga garabna siiyey oo ay ka mid tahay gabar la yiraahdo oo wariyana ah telefishinka Universalna ka tirsan oo joogto magaalada Boston ee gobolka Massachusetts joogto oo la yiraahdo Filson waxay keentay $1,000 oo iyadoo soo aruurisay gabar la yiraahdo oo ayadan abwaanad ah iyo gabar fanaanad ah oo lagu magacaabo Sahruuja iyo Qalanjo 3 maalin oo isku xigto ayay suuqa galeen ee bulshada Soomaaliyeed gacantooda u taageen si ay u weydiistaan isdaqaas ay ka qayb qaataan saddexda gabdhood labadaas gabdhood marna waxay ii keeneen $1,060 mar waxay ii keeneen $52 marna waxay ii keeneen $82 life soo galnay waan cadeynaa waa sheegnay farxii ka beerana way sheegtay way cadeysay ma sha Allah $524 maray ii keentay $850 maray ii keentay gabar Soomaaliyeed magaceeda diiday $200 maray ii keentay $1,000 anaa deeq darajo ahaan jeebkay ka bixiyay ma sha Allah خلاص aan siiyay gabar Soomaaliyeed ah way qoran tahay $2,546 kabayar ayaa bixisay oo keentay $4,550 dalmar yar ayaa keenay $1,000 sidaan hore u sheegay Filsna keentay $1,896 farxiye kabayar keentay meeshaas waxa ka dareemaysaa farxiye kabayar inay dhowr jeer ku soo noqnoqotay oo lacag fara badan ay bixisay gabadhaas walaashay ah shaqo fiican ay qabatay aad iyo aad Amina Dool gabar walaashayna xanuunsan lacagta aan dirnay waa gaarsiinay waxaan hilmaamay inaan sheego rabo farxi kabar $600 cash oo aydan ay sheegtay ummadana Soomaalida dhageysanayeen oo ay cadeysay $650 jikaaka laga soo diray oo gabar Zainab Lidaa soo dirtay lacagtii cashkii aan u dhiibay kamid ahayd marka warkayga waxaan rabaa inaan marka aan ku gaabsado dalka Mareykanka lacagaha qaabka u soo aruuranay horena u sharaxnay anay farxiyo wada joognay dalmar
iyo aniga saaruuji iyo qalanjo aniga iyo filson kulli waan sharaxnay mar labaad xisaabtii markay farxii kabeer soo bixeen waa xirnay haddana farxii kabeer haddana waxay kusii xirtay magaalada london waxaasoo dhan wax dhibaataa kama taagno lacagtii annaga aan aruurinay sidaas ayaan ku soo dirnay waa mahadsan tahay deeq waa mahadsan tahay raalli ah aamina dool $8,400 oo aniga deeq darajo ana ka mas'uulahay oo akoonkayga kusoo dhacayso oo ilaa hadda wada hadal noo socdo qolada goofanka aan ka furnay ayaa igu dhiman waxaan rajaynayaa insha allah adaana ka mas'uula taas okay horta muranka ma jirin deeq haddii aan eegno dhanka asxaabtana daawanaysa oo ilaa iyo hadda 1,600 qofood ah waxaan rabnaa inaan u sheegno horta muranka ma jirin waddanka maraykanka $22,450 waa la bixiyey farxiyana shaqo saadi ah xaqiijisay horta muranka ma jiro marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo farxiye waxay ka hadashay iyo muranka jira adiga shakhsiyan abuukar mahdi oo la yaqaano shakhsi la yaqaano ah oo arrintan bilowgeedii ee soo aasaasay abuukar wax lacag ah oo magaciisa adiga ku jirtay oo maraykan ah ka soo dirtay oo london ah soo dirtay ma jirtaa absolutely maya ma jirto abuukar mahdi warto intoosan ani isoo wakiishan oo telefishinka aan magacayga ka maqlay ka hor ayuu xiriir ila soo sameeyey wuxuu dhahay gabadhaas walaashayna xanuunsan xanuun dhibaatadaasaa jira deeq darajow waxaan rabnaa maadaama aan nin mas-uulaad tahay dalka maraykanka sumcada ku leedahay in aan kusoo wakiilano maxaa ka qabtaa marka waxaan ku dhahay waxba kama qabo abuukar marka maadaama isoo wakiishay lacagta markayna soo gashay asxaabta nagu soo biirtay dalmara nagu soo biiray farxi kabela nagu soo biirtay deeqbilna nagu soo biirtay hodan cabdiraxmaan nagu soo biirtay hebela nagu soo biiray mar kasta waan sheegay abuukar mahdi hal maalin ma uusan idhihin lacagta magacayga kusoo dir lacagta annaga nagu soo hagaaji macaadallaahi muusan na dhihin annagana waxaa go'aansanay lacagtaas aamina dool akoonkeeda meesha lagu soo qoray in aamina dool akoonkeeda aan ku ay si toosa u gaarto faynus sheekh daahir shilin dollar ah oo akoonkeeda ama xawaalad ahaan aa ugu dirteen ma jirta iyadoo london joogto maya ma jirto deeq darajo lacagta mas-uulka ahaa farxi kabar waxay soo aruurisay aniga ii keenaysay dalmar wuxuu soo aruuriyay anoo ii keenayay anigana xisaabta waxaa ila hayay nin la yidhaha cabdirashiid oo saciima sidaan kuu sheego xisaabta 1 by 1 qorayay farxi kabar waa qoranaysay aniga waa qorayay laakiin lacagta in la ii keeno aniga aan hayo ayaa mas-uulaan ka ahaa si aan u ilaalino in lacagtani ee dhowr meel aysan kala tegin oo meelo badan aysan kala tegin abuukar mahdi telefishinka universal maamulka sare ee telefishinka universal inaan ka wada hadalno shaqo ku saabsan shaqada ummadda soomaaliyeed aan u hayo oo halkan aniga agaasimo aan kaga ahay maasha allah shaqo aan ahayn oo aan ka wada hadalna ma jirto telefishinka universal lacag ay weydiiyeen ma jirto lacagtaas markaan aruurinay ani iyo farxiyo iyo dalmar waa wada hadalnay lacagtan sidee ka yeelnaa waxaa go'aan ku gaarnay aamino dool aan wacno aamino dool aan wacnay iyadoo saqdhexe u tahay aamino dool way naga qabatay aamino lacagtaan ku haynaa walaalay maxaan kugu samaynaa waxay tiri akoonkeyga igu soo shuba horta maraykanka xaaladiisa waa sidaas in lacagta aan soo wada dirno magacyadaas aan kusoo wada qorno lacagtan ay noqoto lacag transparency ah oo ummadda soomaaliyeed ee markhaati ay ka wada tahay sidaas aan ku dadaalnay waa mahadsan tahay deeq aad u mahadsan tahay horta sababtaan ku weydiiyey waxay ahayd dadka asxaabta ah ee solarportal.com naga daawada inaan u xaqiijino oo caddayno shaki kuma jirin horta inaan shaqo inaan qabateen waan ku mahadsan tihiin laakiin arrin yaraa jirta meeshaan farxiyana kolley ma dhihin reer maraykan wax kama sheegin oo ma dhihin maraykan shaqo ma qabanin farxiyo waxay tiri ibrahim bafo oo caawa hadduu alla yidhahdo saacadta ayaan u sheegay ibrahim bafo waxaan waraysan doonaa waqti iminka laga joogo 1 saac kadib ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan kaloon maanta waraysi aad u dheer aan ka qaaday 3 qofood abuukar mahdi ayaan waraysi ka qaaday maanta waxaan waraysi ka qaaday maama faynus sheekh daahir iyo gabar kaloo la yidhaahdo qadre maxamuud oo iyadan lacag badan aruurisay marka si maaragtay wax walba banaanka loo soo dhigo adiga shakhsiyan maxaa is leedahay farxiya kaba yare oo intay london imaatay xalay klibkii aan soo geliyey aad daawatay oo ay tiri abuukar mahdi iyo baafo inay lacag isku dirayaan ama reer uk inay ka jirteen adiga shakhsiyan maxay ku tahay ra'yi ahaan maxay kula tahay maxaa ka keenay kaba yare cabdinaasir ustaadkayga adigoo maadsan xushmad ballaaran aan ku hayo shacabka soomaaliyeed daawanaysana aan xushmad ballaaran aan u hayo maasha allah soomaalidu waxay tidhaahdaa malo dembi leh dembina cadaab leh ani ma raba inaan dhaho waxaasaan u malaynayaa iyo waxaasaan u malaynayaa gabadhaas farxiya kabyare oo fanaanad soomaaliyeed ah oo aniga aan isla shaqaynay oo waqti badan aan wada gelinay lacagtii aan u aruurinay aamina dool waxaan ogahay in magaalada london ay u aaday bandhig faneed inay ka qayb qaadatay ay ka qayb qaadato kadibna ay usii gudubto wadamada yurub meelo ka mid ah oo saaxiibadeeda u yeereen iyo taageerayaasheeda kadib aniga waxaan ka war helay
iyada oo farxiyo live soo fadhiisatay oo warkaasi sheegtay oo raggaasi saaxiibadee ah ama walaalahee ah oo isku shaqada aan nahay eedeynayso taasaan ka war helay waan la yaabay farxiyo markii arrintaasi ay sheegtay sababtoo ah makaala hadashay deeq waan kaa dhexgalay makaala hadashay arrintan farxiyo intaysan abuukar mahdi iyo dadka kale magacooda iyo baafa isha makaala hadashay adiga markii intaas live soo gelin ka hor maanan wada hadlin laakiin markii live-ka ay ka baxday ani aan wixii aan daawaday dad badan Soomaaliyeed ay soo waceen ayaa farxiyo xiriir la sameeyay oo aan la hadlay anigoo raba in arrinta aan dejiyo oo aan dhexaadiyo oo arrinta islaax beelanaas aan u galo farxiyo markaasi buuq fara badan ayaa ku furnaa dad badan ayay la joogtay sababta meesha shaqo ay u aaday waxay ii sheegtay inay howl badan ku jirto ay shaqo ku jirto hadda xilligan ee taleefanka igu soo celinayso marka kadibna ma aysan igu soo celin anigana mar kale maanan ku celin wax kale maanan ka wada hadlin laakiin adiga injineere oo joogto magaalada London farxiyo London ay joogtaa waxaan kaa codsanayaa in farxiyo aad la xiriirto oo xiriir bulshada Soomaaliyeed su'aashada aad weydiinayso aad ayadana weydiiso okay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horta farxiyo waan is aragnay waan is qaabilnay Soomaaliyeed isku aragnay iyo magaalada London insha Allah waana la xiriirayaa ani xalay waa soo gali waxaan u soo galina waxay tahay anigu tabcan abuukar mahdi iyo faynuus iyo adiga iyo asxaabana laakiin haddii aan arko wax bulshada ay xiiseeyaan oo ma aragtay isleeyihiin qaladaad ayaa dhacay mar walba waan soo dhigayaa abuukar markaan ima amro faynuus ima amarto qof kale ima amro adi xataa haddii aan wax ka arki lahaa waa soo dhigi lahaa isla markaana fursad ayaan ku siin lahaa laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adoo aqoon u leh abuukar mahdi intaas isla shaqayseen aniga asaga ma difaacayo arrintan ma aamina dhool keliya mise waa ra'yigaaga mise waxbaa hoos socda arrimo kale ayaa jira waayo haddii abuukar mahdi iyo wax caddayn lagu waayo iyo faynuus sheekh daahir iyo dadkii kaloo ka qaybgal haddii wax kale laga waayo so dhibaato ma dhacaysa ma isleedahay arrimo kale ayaa jira oo aan ahayn arrinta aamina dhool niyow hadda ana caddeyn uma hayo inay arrimo kale jiraan sababtoo ah farxi kabeer maraykanka waxaan deganahay muddo 2 sano iyo bar aan deganahay fanaaniinta aan isku dhownahay oo aan saaxiibada hoosanahay dalmar ayaa ka mid ah oo in badan aan is aragnay farxiyo inta jeer aan is aragnay way tirsantaa marna waxaan isku aragnay oo shaqo u tagay meesha iyadoo meesha shaqo u imaaday wayna yar tahay fursadaas in lagu wada hadlo oo lagu sheekaysto laakiin markii aan campaignkan bilownay sida aad live-ka ka arkayseen farxiyo waxaan ahayn dad wada shaqeeyo oo isla socda isku hambaliyeeya isku dhiirigeliya shaqada ay wadaan kadibna kala warqaata ayaan ahayn intaasna maysan ii sheegin dhibaato iyadoo ay ka tabanayso abuukar mahdi amba telefishinka universal maysan ii sheegin abuukar mahdina mausan ii sheegin dhibaato uu ka tabanayo iyada amba universal uu ka tabanayo mausan ii sheegin sida ummadda Soomaaliyeed ee ugu baraarugtay ay u arkeen in farxiyo kabayare ay eedeynayso ninka la yiraahdo abuukar mahdi ayaa aniga u arkay sidaasaan u daawaday weliba live markay soo gashay dad baa ii soo sheegay cabdinaasir oo la dhaha farxiya live ku jirto daawo markaas baabuur gaari aan waday gaariga ayaan joojiyey sidii live ku daawad marka ummadda Soomaaliyeed aan kala simanahay waa gartay deeqow si fiican aan u fahmay waa fahmay waana ku mahadsantahay marka waxaan rabaa inaan mid kale ogaado waxa ay soo gaartay maanta akhbaaraad ah in kabayare iyo Universal TV oo adiga madax uga tahay waddanka Mareykanka ay xarguf ku dhaxmartay waddanka Soomaaliya ku dhaxmartay anaga kuma eedeyn karno farxiyo ilaa afkeeda aan ka maqalno laakiin adi ahaan anigoo qof bulshada laga yaqaan aan ahay haddii aan live soo fadhiisto oo aan iraahdo Mareykanka gabadhii waa ka jiirsadeen deeq darajo iyo dalmarna lacagihii la aruurinayay si la rabo ma dhiibin anoon adi kula soo hadlin arrintaasay ku dhahan lahayd saan sameey aniga igu celi maxaa dhacday tusaale ahaan waddanka Mareykanka imid live aan soo galay anoon kula soo hadlin waxaana iri lacagihii dalmar iyo deeq darajo ay gabadha u ururiyeen sidii loogu talagalay ma aysan u dhiibin wax baa la isdabamariyay anoon kula soo hadlin oo wax fact ama document aan haddii saasaan ku iraahdo maxaa dareemi lahayd adiga aadaan ugu xumaan lahaa arrintaasi cabdinaasir oo yaqaano haddii uu Mareykanka yimaado isagoo la soo hadlin wixii dabagalka oo hal dhinac uu sameeyo anigu aadaan ugu xumaan lahaa mana ahan wax aan filanayo mana ahan wax weligeed igu sameeyey marka aadaan ugu xumaan lahaa hadduu qofka aniga ila soo hadlin oo arrin aniga ku saabsanna ka sheego telefishin ama live ka sheego aadaan ugu xumaan lahaa kaba yare
makaala hadashay in ay dhibaato dhex martay iyada shakhsiyan fanaanad ahaan iyo Universal TV khaasatan waqti ay Soomaaliya ay tagtay oo dagaal qabow hoose u jiro makala hadashay weligaa maya maysan igala hadlin farxiyo kabay arrintaasi ku saabsan telefishinka Universalna muusan igala hadlin sidaan hore kugu sheegay dalkan Mareykanka ayaa aniga mas'uul ka ahay waxaana ku dadaalaa shacabka Soomaaliyeed fanaaniinta siyaasiyiinta culimada inaan u sinnaado oo telefishinkaas uu noqdo telefishin dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo ummadoo dhan ay iska dhex arki karto taas ayaa ku dadaalaa taas ayaanay ka shaqeeyaa farxiyo maalin i imaaday oo ay dhahday ma jirto okay deeq su'aalan ku weydiinaa imisa bilood ama sano ayaad mudiir ama manager ama gudoomiye aad u ahayd Universal TV Mareykanka Universal TV sanadkii 2010kii anoo South Africa joogo ayaa agaasime ka noqday ilaa markaas waan ahaa markii aan dalkan usoo guuray Mareykanka sanadkii 2014kii December 10keedii markaan halkan usoo guuray 2 bilood ayaan telefishinka markaas aan la shaqeynin maadaama aad ogtahay qof soo guuray oo cusub noloshiisa kale oo ka shaqeynayo markii aan usoo guuray Minnesota February 2018keeda markii aan usoo guuray dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota markaas ayaa anigu agaasime ka noqday dalkan Mareykanka marka waxaan ku weydiinaa waxay tahay deeq waxaan ku weydiinaa farxiyo kabayare waa fanaaniinta lagu jecel yahay Soomaalida meel walba ay joogaan qof aad u cod macaan oo ka qayb gasha arrimahan taakulaynta meesha ay ahaataba waraysi ma looga qaaday Universal TV Mareykanka tan iyo inta manager ka noqotay meesha maya waraysi maana looga qaadin sababtu maxay tahay sababtu waxa ay tahay waraysiga in qofka laga qaado waxa ka horeysa horta in la isku imaado ama la sheekaysto ama lagu balamo ama ayadoo ay danaynayso waraysiga in laga qaado sidaa ka warqabtana fanaaniinta markii aan imaado dalkan Mareykanka anigu inta badan barnaamijyada fanki iyo suugaanta ma duubo waan duubaa laakiin fanaaniinta ma waraysto inta badan sababo aniga i gaar ah laakiin markay imaaday gabar la yiraahdo Filson Ahmed oo wariye ka tirsan telefishinka Universal ay imaaday magaalada Boston Minnesota ku casuunay waxay waraysi ay ku bilowday inay ka qaado fanaanka Dalmaryare 3 bilood ka hor ayay ahayd kadib haddana waxay waraysi ay ka qaaday Ahmad Rasta iyo Maxamuud Kaafi waraysi kale oo dabcan fanaaniin ah isku dayay waa jira laakiin kabayar laga ma qaadin marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tan iyo intii aad wadeen arintan gabadhan xanuunsan Aamina Dhool oo klibiya aad duubteen ma ka soo daysan klibiyadaas Universal TV Mareykanka ma ka soo dayseen aniga ka soo daayay kabayar ku jirta markaa aniga ka soo daayay maalintii ugu horeysay oo aan isku imaanay oo aan aqbalnay arrinta oo fanaaniinta Soomaaliyeed in arrintaas ka qayb qaateen kabayare way ku jirtay telefishinka Universal waxaad ka helaysaa haddii aad dib u baarto bogga telefishinka Universal ayaa ka helaysaa farxiyo kabayare iyo dalmar iyo gabar la yiraahdo Surwaaley oo iyadoon gabar Soomaaliyeed ah oo ideyada $8 in shacabka Soomaaliyeed laga qaado ayay ahayd farxiyo kabayare way ku jirtay dadka telefishinka Universal laga sii daayay telefishinka Universal sida ka warqabto qof gaar ah oo mamnuuc ka ah telefishinka oo laga sii day kara la yiraahdo ma jirto farxiyo kabayarena ayadana ma aysan ii sheegin cabasho telefishinka Universal ay ka tahay adiga oo investigation badan sameeya hadda too easy way dib ugu noqonaysaa Facebook telefishinka Universal way ku jirtaa farxiyo kabayare okay waa gartay waana ku mahadsan tahay deeqaada ugu mahadsan tahay taas waa isla fahanay laakiin weli su'aal lagama jawaabin oo ah gabadhii waa gabar la yaqaano caana dadku aad u jecel yihiin way soo gashay waxay ku eeday dad iyagana bulshada magac ku leh Abuukar Mahdi Faynuus Sheekh Daahir oo la yaqaano oo ma aragtay inkastoo Faynuus Sheekh Daahir haddii runta loo hadla kabir aysan waxba ka sheegin oo xogaa hadalkeeda ay isxelisay laakiin Abuukar iyo baafo oo mar dhawaan waraysan doona laakiin maanta waxaan u sheegay asxaabta waraysi aad u dheerayaan ka qaaday Abuukar Mahdi waxaan ka qaaday maama Faynuus iyo gabar kale oo iyadan la yiraahdo Qadra Maxamuud oo arrimahan ka hadleen Abuukar wuxuu yiri simply sida ugu fudud waxay tahay haddii qof aniga uu isiyay $1 ii soo diray ama magacayga ku soo diray adduunka meeshuu joogaba ha soo sheego anna waxaan idhi haddii lagu soo sheego qofka ugu horeeya oo soo bandhigay waa aniga marka haddii Abuukar saas isku hubo mar dhowna insha Allah markuu barnaamijkan dhamaado waxaan soo deynaa waraysigii Abuukar
waraysigii maama faynus iyo gabadhan kale yidhahda qatar ayaan soo daynaynaa baafana waan waraysanaynaa marka arrintan haddiiba abuukar saan isu hubo gabadhiina aysan abuukar la hadlin magaalada waxaa la isla dhex wadaa arrintan shaqo kuma leh aamino dhowr idinkiida ma qusayso taban idinki wixiin waa nadiif ma qusayso ma kula fiican tahay in qof magaciisa lagu wasaqeeyo facebook lagu wasaqeeyo isla markaana gabadhii xanuunsaneed dusheeda isku dagaal ma kula fiican tahay adiga deeq ahaan cabdinaasir horta aad u maasan tahay horena u sheegay facebookna saaxiibaan ku ahayn in badan oo badan waxyaabaha aniga aan ka fogaado waxaa ka mid ah qof bini aadan ah muslim iyo gaal yahuud wuxurba ha ahaado in qof bini aadan ah magaciisa hoos loo dhigo qof bini aadan ah magaciisa la wasaqeeyo aniga mar walba arrintaas waa ka soo horjeedaa mana jecli in qof bini aadan ah sidaas la yeelo haddii aan dib wax yar ugu noqdo cabdinaasir oo ummadda soomaaliyeed arrin wax yar aan u sharxo dalka maraykanka fanaaniin badanaa ku nool hodan cabdiraxmaan ayaa ka mid ah weli lama wareysan telefishin universal ma uusan wareysan raxmed roosi ayaa ka mid ah telefishin universal weli ma uusan wareysan deeqa bilan ayaa ka mid ah telefishin universal weli ma uusan wareysan fanaaniin badan oo kale oo rag iyo dumar maxamed altaa ka mid ah asagana sidoo kale lama wareysan caaqliyaraa ka mid ah lama wareysan macnaha haddii fanaanka la wareysan waayo waxaanay u arkaa in xumaan aysan jirin laakiin ay tahay xilligii in la wareysta ay tahay uusan ilaahay qorin oo calafkaasi uusan imaanin labadaas qofoodna aysan isku imaanin ayaanay uma maleeyo faxii kabar telefishinka universal ee dalka maraykanka lagama wareysan caqudada jirta ma ahin telefishinka universal ma dhihin laakiin deeq ma dhihin waxaa cad oo jirta in arrimo la xaqiijiyo oo ah in kaba yare iyo universal tv harguf yar ay dhex taallo way jirtaa laakiin u malayn maayo inay saameyn ku yeelatay laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal su'aalo muhiimaan ku weydiinayaa gabadhan waxaan filayaa deeq inaa ila jirtaan filayaa indhaha way maqan yihiin dad badan waana daawanayaan iisoo walaal kuwii wiiga way ka guureen halka annagaa soo degnay marka waxaan idinka raali gelinayaa deeq xoogaa arrimo xalinaya waa xalin kartaa dhiman anaa dadka la sii hadlaya waa xalin kartaa deeq waa maasantay su-aashaan rab inaan ku weydiiyo waxay tahay oo hadda isoo gaartay mar dhow waxaan ka eegayaa messageska iyo alaabaha la iisoo dira halkan ka eegaya anoo kula hadlaya waxaa hadda isoo gaartay oo la leeyahay runtiina waa nasiib xumo haddii si loo fiiriyo sababtan shaqo kuma leh ayaa la leeyahay waxa dhacay iyo lacag sababtoo ah qofka bani aadamka waa la eedi karaa waxa la dhihi karaa wax baad xaday wax baad soo marsay wayna dhacdaa dad badan oo tviyada ama websiteyada ama facebookyada ama gofund xataa lacag ku xada way jiraan soomaali ah oo la og yahay laakiin arrintan waxay u laabanaysaa xarguf kale oo dhex taallay abuukar mahdi iyo fanaaniin kale oo uk ku nool oo la soo sheegay in xaafado qaarkood iyagoo dembiil wata tagay oo dembiishaasna ay leeyihiin gabadhan wax ugu ururinaynaa arrintaas ma maqasheen idinka dhankiina niyo maya ani ma maqal wax london ku saabsan oo buuq iyo qayli ka tagantah maan maqlin sababtoo ah cabdinaasir inaan soo aroorino lacag gaarayso $30,000 waxay ku tusaysaa inaan meelo kale anaga aanan ku mashquulin oo aan ku mashquulnay waddanka aan mas-uulka ka nahay oo sida nala soo wakiisha aan ugu soo baxnay maadaama dalka maraykanka ay degan yihiin soomaali aad iyo aad u fara badan ay degan yihiin oo daacad ay ka tahay in dadkooda iyo walaalahooda ay wax u qabtaan waxaana tusaale kugu filan 2 maalin gudahood ayaa dalkani toddobaadkii hore laga arooriyey $640,000 loogu talagalay lacagaha loo dirayo soomaaliya dadka dhibaatada qaraxii soobi ka soo gaartay marka aniga waxaan jeclaan lahaa su'aalaha ku saabsan dalkani maraykanka in wax badan aad iga weydiiso si aan anigana faahfaahin iyo waa mahadsan tahay runtii waa ku mahadsan tahay fursadada qaaliga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka soo ayaan darro ma ahan caawa waxaana daawanaya iminka 3,300 qofood ayaana daawanaya waa dad aad u fara badan oo meel walba jooga arrintan xiisay ayaan darro soo ma ahan dadkii xataa berri dhihi lahaa haddii adoo wejigaaga la yaqaana anoo la yaqaano abuukar oo la yaqaano kaba yare haddii ay soo fadhiistaan ay yidhaahdaan ilaahay hanaga ilaaliye ama deeq ama cabdinaasir ama qof kale oo ayaa wax loo samaynaya qof walba inuu yidhaahdo war igadaa kuwii ayaantii dhexdaas lacagtii gabadha oo laysku hesaysto dadka soo aamin darro iyo maaragtay weji xumo soma imaanayso oo dadkii inay ka aamin baxaan dadka la yaqaano anaga ay ka mid nahay oo wejidii la yaqaano deeqo ha aamin darro way imaanaysaa bulshada soomaaliyeedna dhagahooda uma fiicna in la maqashiiyo waxyaabahaasoo kale uma fiicna aniguna waxaa mar kasta aan ku baaqaa oo aan jeclahay
in bulshada Soomaaliyeed dhigooda la maqashiyo wax la soo hubiyey la soo xaqiijiyey oo hadhow haddii su'aalo lagaa weydiiyo aad ka jawaabi karto oo haddii hadhow lagu imaado warkaas meesha ka soo xigata aad sheegi karto dhibaatadaasi shacabka Soomaaliyeed way gaaraysaa wayna nagu adkaanaysaa haddii dadka Soomaaliyeed wararka noocaas kale ah loo tabiyo inay haddana beri ayna aaminaan way nagu adkaanaysaa walow haddii qofka Soomaaliga ah lacagta ka soo qaaday lacagta qaabka u soo qaaday ee daacad ka tahay oo ilaahay dartiisa u soo qaaday oo gabadhaas ilaahay dartiisa u caawinayso ilaahay dartiisna u wareejisay walow dadka ay ku sii aaminayaan oo aaminaada ay sii badanayso oo aniga aan aaminsanahay in qofka Soomaaliyeed sida uu ku aaminay haddii adiguna aad ugu soo garbaxdo in aaminaada ay sii badanayso laakiin wararka inta badan social media lala imaado oo aan la hubin oo la sheegayo ma ahin wax fiican bulshada Soomaaliyeed dhaawac weyn u geysanaysaa hawshana farka ma qodno oo hadda aamin dool haddii la caawiyo dad kale ku soo xigsan kara aamin dool oo iyada oo kale ah waxa laga yaabaa anigoo hadda kula hadlayo in meesha aamin dool maanta ay joogto kala aan imaado oo shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo adigu aad ka mid tahay caawinaad kaaga baahdo qof boqolkiiba boqol oo fiican oo caafimaadkiisa loo garanti loo siiyey ma jirto ninka adduunka ugu taajirsan wuxuu u baahan yahay caawinaad u baahan yahay صح qof aan u baahanin waa Allah subhanahu wa ta'ala oo kaliya markaan waxaan sheegi lahaa oo aan bulshada Soomaaliyeed dhagahooda inay maqlaan aan jecelahay mar kastaba warka wanaagsan oo bulshada wax u taraya wax u soo saacidinaya oo la soo hubiyey oo la soo xaqiijiyey taasi ayaana ku baaqaya sababtoo ah aamin dool waa qof xanuunsan waxaan jeclaa lacagta loo geeyey iyo lacagaha ummadda Soomaaliyeed u soo dirayso in buuqi qeyla aan la gelin si ay caafimaad iyo niyad fiican u hesho okay waxaan rabaa inaan ku darsado waxaan la xiriiray dad badan oo arrimahan qusayso waxa ugu horeeya saaxiibkay Salman oo adna astaqanaan oo ku sugan wadanka Turkiga Salman wuxuu yiri aniga hal liira oo lacagta Turkida kama qaadin waan u xayeysiiyey linkiga ayaan waxaan u soo geliyey Facebook-gayga shilin kama qaadin Turkigana waa wadan iska ma aragtay Soomaaliduna ay ku badan yihiin laakiin aanayna wadan lacag taala marka taas waa la xaqiijiyey waxaan kaloo raadinayaa aan wareysanayaa aan la hadlayaa qaalib yar oo afnaan oo Birmingham ku wasagana waxaan kaloo ma aragtay aan la hadlay dad kaloo kala duwan laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa su'aasheeda haddii aad tahay caawa Abuukar Mahdi Faynus Sheekh Daahir haddii wax laga waayo evidence ama caddayn ah oo la soo dhigin banaanka laakiin magacaagii social media ha lagu dhaqay asoo wasaq ah maxaa dareemi adiga deeqahan anagoona eedin kaba yarana eedin qofna eedin adigu maxaa dareemi lahayd haddii aan magacaaga u ahaan lahaa caawa Abuukar Mahdi ama Faynus Sheekh Daahir maxaa dareemi lahayd adiga horta weliga lima eedin oo qof bil aadan eedmaysan igaga imaanin oo noocaasi ku saabsan laakiin waan dareemi karaa waxaan dareemi lahaa aad aan ugu xumaan lahaa sababtoo ah shacab badan oo Soomaaliyeed oo taageerayaal adduunka ah ku leedahay ayaa warkaasi maqlay waxa laga yaabaa in waalidiintaada ay maqlaan waxa laga yaabaa in walaalaha ay maqlaan waxa laga yaabaa in caruurtaada ay maqlaan waxa laga yaabaa in xaaskaada ay maqasho waxa laga yaabaa dadka adduunyada u jecleed inay maqlaan warkaasi aad aan ugu xumaan lahaa aad aan ugu murugo lahaa warkaasi mana ahan wax la jeclaysto hadalkana dhahday deeqow hadalkana dhahday waa muhiim maanta markii aan waraystay oo mar dhawaan soo day doono waraysiga insha Allah intaan baafa aan live course in Australia soo dayn doona erayay tiri iyadoo runtii aad u murugaysan Faynus Sheekh Daahir waxay tiri caruurtaydii walaalahayga oo Mareykan jooga ayaa soo waceen maama lacagtan lagugu sheegtay oo lagugu leeyahay aan ka bixinay meeqayta iyadoo ilan ay ka soo dhowdahay wili oo runtii aad u murugaysan iyadana Faynus Sheekh Daahir qof walba waa yaqaanaa waa qof maama ah waa qof grandmother ayay ah habeenii maalin iyadoo xanuunsan waxay u orodaa ma aragtay in dadka Soomaaliyeed ay caawinto meel walba baaldigeed la taagan tahay ay dadka ay u lacag raadisay marka waxay tiri wixiina wala iska aamini karaa runtii ani ma aaminsani ani shakhsiyan ma aaminsani Abuukar Mahdi iyo maama Faynusa $1 qof uu leeyahay jeeb gashtay haddana ma aaminsani weligay ma aaminsani haddii laakiin la ii keeno evidence ama caddayn waraaq ah oo cad oo lacag ay ku soo dhacday markaas halkan aan soo dhigaya waana aaminaya laakiin hadda xilligan aan kula taaganahay aniga kulley boqolkiiba boqol ma aaminsani maamada oo waqtigeeda saas u gelisay soo xogaa foolxumo maaha in wax lagu sameeyo haddayba dhacdo koley Faynus Sheekh Daahir waa hooyo Soomaaliyeed waa fanaanad qaran ah in muddaana waa la wada yaqaanay dadka Soomaaliyeedna way og yihiin sidaad sheegtay caruurteeda soo wacay hadda caruurteeda markay dhahayaan lacagta aan ka dhiibno sidaad adigu ii sheegayso
waan dareemi karaa sababtoo ah adigu waa dhihi lahaa haddii waalidka wax lagu soo eedeeyo adigoo raba in hooyada aad nadiifiso amba hooyada qalbigeeda aad wanaajiso amba aad u sheegto hooyada lacagta la bixi kar lacag weynaysan ahayn laakiin waxaa muhiim ah warkani ma yahay war jiro iyo war aan jirin warka cabdinaas sida og tahay markuu jiro markii meel laga sheego iyo marka uusan jirin markii meel laga sheego way kala xanuun badan yihiin aad u kala xanuun badan yihiin aad iyo aad adigoo aad tahay nin tuug ah oo lacagta xaday oo lagu lacagtii xaday cabdinaasir xanuun kuguma hay sababtoo waa og tahay in lacagtan already aad xaday in lagu soo eeday karo in gacanta lagaa jarayo waa og tahay laakiin haddii aadan xadin oo lacagta aadan qaadan oo daacadnimo a usoo gashay lagu eedeeyo way ka xanuun badan tahay taasna waxaan u dareemayaa ani shakhsiyan sida ay dadka kale ummadda kale oo soomaaliyeed ay u dareemayaan ayaa u dareemayaa inaad investigation samayso oo waxaana aad soo baarto weliba adigoo london joogo magaaladaadii arrintan ay ka dhacayso shaqaas waa shaqadii ku taalla waxaana ilaah ka baryaa inuu garabkaada galo oo wareysyada dambe oo saaxiibadana ah ka soo qaado amiin asxaabta waxaan u sheegayaa ugu horeyn markii aan ka baxno insha allah hadda waa ka baxaynaa intaan la gaarin hal sax kadib waxaan hadda idin soo gelinayaa waraysigii maamada aan ka qaaday Faynuus Sheekh Daahir Abuukar Mahdi iyo waxaan soo gelinayaa wallkayga oo facebooka gabadha kale la yiraahdo Qatra Maxamuud oo daris ahaayeen xaafadda ku taala galbeedka bariga magaalada London waxaan kaloo in xasuusinaya Ibrahim Baafa ayaan wareysanayo asna la yiri 8,000 maxaad u soo diray weysay asna waan weydiinayna 8,000 aawi laakiin su'aasha ugu dambayso aan ku soo xiray waxay noqonaysaa ayaan darrada halkan ka dhacday waxay tahay inaan ilownay gabadhii walaasheen oo xanuunsanayd oo runtii oo loo gurmaday dad badan account-kayga lacag ay ku shubeen idinkoo soo diray $30,000 wax yar ma ahan waxa samayseen horta ilaahay maartay ajir idinka siiyo laakiin gabadhii aan ilownay haddii wax loo fiiriyo anigu waxaan xasuustaa arrinteeda markay socotay waqti badan ay kama aanan qayb galin kadib waxaa dhacday masiibadii zoba dhacday maalin ayaa waxaan ku arkay facebooka Abuukar oo leh kullay arrintii anaga aan wadnay arrin ka sii weyn ayaa dhacday laakiin fadlan yaan la iloobin arrintii weli way socotaa oo isbitaalkii fanaaniinta ay u tageen qof walba la yaqaan u tageen laakiin ayaan darrada maanta annagoo dhan wada haysta waxay tahay in gabadhii Soomaaliyeed oo loo istaagay haddana la iloobay soo ayaan darro maantaas waxaan ku baaqayaa ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa in aysan saameynin social media la soo galayo iyo arrimahan kale ay saameynin amina dool lacagta Mareykanka laga soo arooriyay 30,000 lacagta u baahan 100,000 lacag kale la soo diran way jiraan sida ayadoo ay sheegtay iyada bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigi doonto waxaan codsanayaa oo bulshada Soomaaliyeed aan ka codsanayaa in gabadhaasi la caawiyo in gabadhaasi gacan la siiyo in gabadhaasi lacagaha dadkii hore u dhiibanayeen mar kale ay bixiyaan dadka aan dhiibin oo u suurgelina ay siiyaan sababtoo ah amina dool baahideeda weli way taagan tahay caawinaadeeda weli waa loo baahan yahay waxaan ummadda Soomaaliyeed qof kasto oo adigu ka mid tahay oo aniga aan ka mid ah ugu baaqayaa energy-ga aan gelin lahayn waxyaabo kale inaan gelinno inaan gabadhaasi caawino oo gabadhaasi aan garab istaagno qof walba oo Soomaaliyeed aan caawino oo qof kasta oo Soomaaliyeed aan garab istaagno cabdinaasrow baahiyada Soomaaliya ka jirto iyo dadka Soomaaliyeed ay qabaan aad iyo aad bay u badan yihiin waxaana hubaa oo aan arkay in kulli wax loo qaban karo qof kasta oo Soomaaliya maanta dhibaataysan in wax loo qaban wallahi waan arkaa intaasi bulshada Soomaaliya dadka dhaqaaqaya oo istaagay oo shacabka Soomaaliyeed u qabanaya walaalayaalow inaad dhahdaan thank you maahina wax kale yaa lagu darin waa dad shaqadoodii iyo hawshoodii ugu soo tagay inay dadkaas walaalahoodii caawiyaan ma sha Allah waa ma santahay waqtiga ayaan u dhamaaday maalmaha amniga shaqada aan u hayay waxaan dareemay culays aad u fara badan waxaan dareemay in shaqooyin fara badan anigoo aan lahaa aan dayacay waxaan dareemay in dad fara badan tusaalaan kuu soo qaadanaa laakiin waa ku qanacsantahay waxaa qabatay 100% qof baa kaa soo yaa meel aad u fog oo 20 kilomitir u jirto wuxuu ku leeyahay walaalow $20 haya iga soo doon laakiin qofka kula soo hadlaya $20 hayo waxay ka tahay qalbi waa daacad ka tahay intaas oo awooda wuu jecel yahay marka aad waxa ku qasban tahay qofkaas sadaqada ah ilaahay waxa laga yaabaa $20 asaga bixiyo laakiin waxa laga yaabaa in ilaahay uu siiyo ajir anaga ka haysano iyo kan $2,000 bixiyo ka badan in ilaahay siiya laga yaabaa sababtoo ah jeebkiisa ka go'inayo ka soo baxshay ma sha Allah aad u mahadsan tahay saaxiib waa mahadsan tahay deeqow aad u mahadsan tahay asxaabta qiimaha qayha leh 45 minute time waqti 45 daqiiqo hadduu alla yiraahdo waxaan si toos ah u wareysanaynaa isagoo ku sugan waddanka Australia Ibrahim Bafo isla soo difaaca ka hor laakiin waxaan idin soo gelinayaa videos oo aan ka duubay maama Faynuus Abuukar Mahdi
iyo gabadha la yiraahdo qatra oo ay darisayeen qatra maxamuud gabadha walaasheena marka waxaan ku soo xirayaa gabadhan yaa la iloobin gabadhan xanuunsan arrimahan kalena ha la dejiyo wanaaga soomaalinimada waddankeena aan ku cibri qaadano deeq darajo saaxiib qaali ah university tv chairkeeda magaalada minnesota waddanka maraykanka boqolkiiba boqol ku mahad celinaya saaxiib waad mahadsanta saaxiib thank you habeen wanaagsan